بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، walaalayaal dhammaantiin meel aad adduunka aad ka joogtaanba, marka koowaad waxaa idinku salaamayaa taxiyatu lislaam. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad idinla qaybsado, idinkalana kulmo tv-ga qaranka soomaaliyeed ee magaalada Toronto oo sanadkii labaad aanu kaga hadli doono biidn illaahi tabaaraka wa tacaala arrimo ku saabsan qoyska wanaagsan. haddii aad xusuustaan sanadkii hore waxaanu kaga hadalnay jacaylka ka dhexeeya lamaanaha. insha allahu tacaala waktigan ama maanta waxaan jeclahay inaad ila qaybsado mowduuc aad iyo aad u kooban oo laga yaabo ka hadalkiisu inuu mararka qaarkood aan aad loo fahmin, laakiin ujeeddada aan ka leenahay aan doonayo inaad ka fahmi doontaan kelimada biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. maanta waxaan rabaa inaad la qaybsado mowduuc ciwaankiisu yahay min asbaabi inhiyaari اlusar, qoysaska waxyaabaha dumiya wax ka mid ah. qoysaska wax badan baa dumiya. haddaan xalaqadii hore sida laysu jeclaanayo, sida laysu dhisayo, sida layskugu dhowaanayo, sida layskugu qoslayo, sida laysu ixtiraamayo, sida layskugu kalsoon yahay, sida laysu qadarinayo, haddii aan sanadkii hore aan ka soo hadalnay, waxaan jeclahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaala sanadkani inaan idinla qaybsado mowduuca ah talow noloshii nooca u macaanayd ee aadka u wanaagsanayd maxaa carqalad gelin kara. dabcan wax aad u fara badan ayaa carqalad gelin kara. waxaa ka mid ah waxyaabaha reeraha dumiya, cibaado xumada ayaa ka mid ah. inaan ilaahay lagu xidhnaanin tabaaraka wa tacaala. labada qof inayna marka isdooranayaan aynan diin iyo akhlaaq isku dooranin, waana khilaaf. haddii aad khilaafto sunnada nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam, haddii aad khilaafto wixii uu reer ku wanaagsanaan lahaa, midhaha iyo natiijada aad goranaysana waxay noqonaysaa midho aad iyo aad u khadhaadh. saas daraaddeed marka la isdooranayo, haddaan diin iyo akhlaaq marka hore la isku dooranin, waxyaabaha reeraha burburiya ayay ka mid tahay. oo talo in la isku doorto diin iyo akhlaaq maxaa ka dhasha? waxaa ka dhasha cibaado. labada qof ee isqabta ee lamaanaha ah haddaynan cibaadaysanin, haddaynan ilaahay u tukanin, haddayna ilaahay u sujuudin, haddayna ilaahay u rukuucin, haddayna ilaahay ku kalsoonayn, haddayna ilaahay isu dhiibin, haddayna qalbigooda cabsi iyo taqwo ayna ku weynayn, shaki waxaan ku jirin reerkaa waxaa soo dhexgelaya shaytaan ayaa soo dhexgelaya. idan sababta koobaad oo reeraha naga dumiya waxaa ka mid ah inaanan ilaahay caabuditaankiisa dhabta ah, inaanan ilaahay u wada rukuucin tabaaraka jala wacala. walidaalika ayaa nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu dhihi jiray, war gabdhaha jiijiifow toosa, war toosiya haweenka jiifa, xataa uu nabigu u duceeyey salى اllahu alayhi waali wasalama. allaha u naxariisto fiiri, waa ducada nabigana waa maqbuul. allah ayaa aqbalaya tabaaraka wa tacaala. allaha u naxariisto nin toosay oo salaatuleyl u toosay, weysaystay oo 2 ragcadood tukaday. haddii uu 2 ragcadood tukaday kadibna xaaskiisa toosiyey, hadday diidana xoogaa yaroo biyo ah ku toosiyey oo wejiga maxaa la yidhahdaa kaga shubay. sidoo kale allaha u naxariisa gabadh intay toostay oo tukatay kadibna ninkeeda toosisay. haddaan ku noqonno noloshii nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam iyo noloshii saxaabatu rasuulillaah iyo noloshii haweenkii nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam, oo haddii qudwo noo ah, oo dee ku dayasho noo ah, oo ciddaan ku dayanaynay ah, ma ahayn sidaan annagu aan nahay oo kale. ilaahay bay caabudi jireen cibaado dhab ah, ilaahay bay ka cabsan jireen cabsi dhab ah, ilaahay bay tala saaran jireen tala saarasho dhab ah. kadibna midhihii bay gurteen, reero wanaagsan bay noqdeenoo qanaaco meesha ugu dambaysa ayay heleen. idan qodobka koobaad ee reeraheenna naga dumin kara waa maxay? waa inaanan cibaadada dhabta ah aanan ilaahay caabudin. waa labada qof baan ka hadlayaa. qodobka kale oo reeraheenna naga dumin kara waa maxay? waa inaan labada qof isku kalsoonayn. labada qof haddaynan isku kalsoonayn oo kalsooni dhaba isku qabin, oo aynan is-aaminsanayn, oo ayna isqadarinaynin, oo ayna isxurmaynaynin, oo mid walba midka kale uusan
mustawe iyo makaano aad u sarraysa uusan kala joogin xaqiiqo waxaa oo dhab ah inuu reerka uu dumayo. qodobkaana waa qodobka labaad oo waxyaabaha reeraha naga dumiye ah. waxaa reeraha naga dumiya in qayaadada iyo maamulka la isku qabsado. gaadhiga yaa wadaya, tareenka yaa wadaya, hayweyga yaa saaraya, yaa horay wadaya, yaa gadaal fadhiisanaya. qodobka waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. walidaalika reeruhu waa dowlad. dowladda lagu sheegaya waa qoys lagu daray qoys kale, kadibna qabiil isu bedelay, qabiilkina uu degmo isu bedelay, degaankii uu shacab isu bedelay, shacabkii uu qaran isu bedelay. sidaa daraaddeed reerku waa reer, waa dowlad baanu dhihi karnaa. dowlad aan madaxweyne lahayn, dowlad aan wasaaro lahayn, dowlad aan shacab la xukumo lahayn, dowlad aan dhaqaale iyo bajad lahayn, dowlad ay xuduud ilaashata aan lahayn, haddee dowlad ma noqon karto. haddii aanu dhahno marka qoyskii waa dowlad, yaa madaxweyne u ah, saddex mid un bay noqon lahayd: in ninka laga dhiga madaxweyne, ama in gabadha laga dhiga madaxweynihii iyo maamulihii reerka, yaa imaa in labadoodaba laga dhigo. labadooda in laga dhigayo waa mustaxiil oo suurtagal ma aha, waayo koonkan hal hogaamiye ayuu leh. caqliga iyo fitrada iyo noloshu iyo tajrubaduba way diidayaan gaadhi inay laba qof hal shukaan intay wada qabtaan uu mid walba wado. sidaa daraaddeed taasi haddaanu dhiibnay oon xagga dhignay, waxaa soo hadhay imaa in adiga laguu dhiibo, waa imaa in gabadha loo dhiibo. allah tabaaraka wa tacaala xikmadiisa cajaa'ibka ah ee aan dhammaanayna wuxuu doortay in ninka loo dhiibo. walidaalika buu alla yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. raggu ayagaa maamulka u haya dumarka, ayagaa nafaqada u haya, ayagaa guurka iyo kolka horeba dhismaha ayaga ayaa laga rabaa, ayagaa mihirka laga doonayaa, ayagaa qawaamadii iyo reerka inay toosiyaan ayuu alla ka rabaa tabaaraka jala wacala. idan reerka ninka ayaa hogaana. gabadhii hadday hogaanka ninka ku qabsato, waxaa dhacaysa reerka inuu dumo. haddaanu doonayno marka reeraheenu inay noo dhisnaadaan, waa in uu hogaanku noo toosnaado, waa in ninka hogaankiisa loo daayo, waa inay gabadhuna ay shaqadii wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulkii gudaha, waa inuusan ninku ku qashqashaadine uu ku xurmeeyo, ku qadariyo. gabadhana waa inuu ninkuna waa inuu gabadha la tashado oo tashaawur la sameeyo. go-aanka u dambeeyana waa inuu ninku qaato, maxaa yeelay asaga madaxweynihii reerka ka ah. marka waxyaabaha reeraha naga dumiya waxaa ka mid a in la isku qabsado maamulka. waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid a dhaqaalaha oo si fiican loo maamuli waayo, lana garan waayo marka hore meeshuu ka imaanayo. qodobkan qodob ka horreeya waxaan soo tilmaamay inuu ninku qawaamadii hayo. ka warrama ninku hadduu shaqayn waayo oo uu reerka dhaqaalihii u keeni waayo, oo gurigiiba ijaar wax lagaga bixiyo, oo caruurtiiba gaajo iyo waxbarashadii wixii oo dhan isku dhex daataan, reerkaa ma dhisnaanayaan? waa maya. sida asalka ah ninku inuu soo shaqeeyo, gabadhuna ay guriga iyo caruurta iyo tarbiyada iyo ninkan soo daalay markuu imaado inay cagaha biyaha u geliso, inay maxaa la yidhahdaa ay cuntadii iyo nafaqadii ay siiso, asagii inay nafaqayso dhaqaalayso. saas weeye sida asalka ah. laakiin hadduu ninku shaqada u dareeri waayo, dabcan gabadhi inay shaqayso way ku qasbanaanaysaa oo in la noolaadaa la doonayaa. laakiin ma idinla tahay reerkaa inuu dhisnaanayo? waxaan u dirayaa risaalo khaasa ragga anigu aan ka mid ahay ee Soomaaliyeed oo in badan oo ka mida ku dayacay mas-uuliyaddii ilaahay uu u dhiibay tabaaraka wa tacaala, ehelkoodii iyo reerkoodii ku dayacay. laga yaaba inuu meelaha fadhiyo, laga yaaba inuu fadhi ku dirir waqti ku bixinayo, waxaa laga yaabaa meelaha inuu caleen iyo qaad ku cunayo, waxaa laga yaabaa kullu daalika ma aha shay tabriira ama laga dhigan karo daliil oo lagu dayaco reerka aakharana lagu badbaado. wallaahi inayna maalinta qiyaama lagu badbaadaynin. haddee reerkuna waa kaa dumaya. haddaad mas-uuliyadda ka soo bixi weydo, reerkii waa kaa dumaya, oo reerka nafaqadiisii iyo biilkiisii iyo maamulkiisii iyo kala hagiisii iyo xikmadiisii iyo mucaasharadiisii haddaad adigu la imaan weydo, xaqiiqo waxaa ah reerku inuu kaa dumayo. marka ragga Soomaaliyeed in badan oo ka mid a waxaa weeye qodobkaa way ku dayacaan dumarka. waxaan doonana aan ku maraarmarsoonno, allah aan oga baqno tabaaraka wa tacaala, oo aan xusuusanno qowluhu tacaala waqifuuhum inahum mas'uuluun. maalinta qiyaame cidda wax su'aali waa allah, cidda wax la su'aalayana waa adiga.
waad qaawan tahay oo rabbi baad hor taagan tahay. nabiguna calayhi الصalaaةu wasalaam waa mid kale kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can raciyatihi. alrajulu raacin fii ahli beytihi. ninka gurigiisa ayaa wax laga weydiinayaa. waxa ugu horeeyana waa mucaasharada iyo nafaqada, siduu ilaahay qur'aankiisa liyunfiqo duu sacati min sacati iyo aayaadka fara badan ee hadda marka aan la soo koobi karin. idan qodobadaasoo dhan oo hadda aanu sheegnay waa qodobo aad iyo aad muhiim u ah. waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid a gabadhu inayna ninkeeda ateecin oo ninkeeda ayna maqal, oo ninkii qawaamada loo dhiibay ee biilayey maamulayey ee hoggaanka u hayay inay ama qayaadada iyo maamulka ku qabsato ama ma ahane ay ku madax adkaato, nushuuso ay noqoto, naashiso ay noqoto oo ayna ateecin. waxaan rabaa gabarh kasta oo soomaaliyeedoo muslimada inaan si khaasa risaalo oogu diro, sida aan ninkaba aan risaalada oogu diray inuu reerkiisa biisho oo waajibaadka iyo qawaamadii uu ka soo baxo. haddii uu ka soo bixi waayena reerka uu dumayo. gabadha risaaladan u dirayo waxay tahay inay ninkeeda maqasho, oy madax adayga ay iska dayso, oo ay zawjkeeda ay ateecdo. ma og tahay yaa amata allah inay jannadaadaba ku jirto cibaadada alle kadib, towxiidka alle kadib, salaada iyo waajibaadka kadib? ma og tahay inay cibaadadaadu ay ku jirto, daacada jannadaadu inay ku jirto zawjkaaga ood wanaagga aad ku ateecdo, zawjkaaga oo aad macruufka aad ku ateecdo, wax kastoo uu ku amro inaad dhahdo nacam xabiibii zawji, waan ku ateecay, waan samayn, waan maqli, waana yeelayaa. maxay kaa dhimaysaa kaa dhibay baad u malayn? kow, ninkaagu waa kugu jeclaanayaa. rabbi subxaanahu wa tacaala waa kugu jeclaanayaa. midhaha aad ka guranayso waa horta adduunyada waa iطmi'naan iyo deganaan iyo xasilooni iyo qoys wanaagsan iyo usra saciida iyo qoys lagu daydo oo raaxa leh oon buuq iyo qaylo lahayn ayaad horta adduunyada kasbanaysaa. aakharana dee jannaad ku gelaysaa. lixadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalama, xadiidkii uu nabigeenu yidhi calayhi asalaatu wassalaam, haweenaydu hadday shanteeda waqti ilaaliso, bisheeda ramadaanna ay soonto, sanadkii hal mar bay imaanaysaaye, wahaakadaa xubnaheeda tarankana ama xubinkeeda tarankana ay xumaanta iyo zinada ka ilaaliso, aye ninkeedana ay ateecdo oo wanaagga iyo macruufka ay ku ateecdo oo ay ku maqashay oo u hoggaansanto, 8 janno ee albaabka ayaa la yidhaahdaa midkaad rabta ka gal. idan haddaad intaas samayn weydo, haddee reeraheennu way naga dumayaan. idan reeraha waxa dumiya waxaa ka mid a ninka oo reerka dayacay iyo gabadhii oo ninkeeda maqli weyd. labadaasoo la isku daray, ninkii oo reerkiisi dayacay oo waajibaadkiisa ka soo bixi waayey iyo gabadhi oo madax adkaatay, labadaasoo la isku barxay oo la isku xariiray oo la isku sameeyey, ma u malaynaysaan inuu reer ka dhalanayo? xaqiiqadu waa nooca. midhaha laga guranayo khadhaadhna waa tarbiya xun iyo caruurteennu meesha ay marayaan iyo meelo ka dardaran ama meelo ka xun in ay maraan. waxyaabaha reeraheena dumiya waxaa ka mid a inaan labada qof ee isqabtay ayna wada tashanin oo mid walba midka kale uusan garanin waajibka uu kan kale ku leeyahay. sidaa daraaddeed waxa ka dhexeeyaba ayna garanin. ninkii si gooni abuu doonayaa inuu wax u maamulo, gabadhina si gooni abay doonaysaa inay wax u maamusho. koontadeeday gooni u qaadan, dukaankeeday gooni u maamulan, lacagteeday gooni u maamulan, wakhtigay doonto ayay bixi, wakhtigay doontay soo noqon. ninkana sida oo kale. idan inaan la wada tashanin waxaa ka dhalanaya reerku inuu dumo. waxyaabaha reeraha dumiya waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana khayrada iyo masayrka. waa runtii waana qodob aad iyo aad khatar u aweeye. laakiin marka hore waxaan doonaynaa inaan dhahno horta masayrku qaybo badan ayuu le. ragga ayaa masayra, hadda dumarka ayaa masayra, laakiin masayrku labu u qaybsamaa. masayr wanaagsano ninku inuu u diido xaaskiisa xumaanta oo aroosyada xunxun ay tegaysa iyo ragga ajaanibta oo ay salaamaysa iyo xaaladda iyo wakhtiga xun ay soconaysa iyo hadalka xun ay la imaanayso iyo hadde waa masayr wanaagsan wey. gabadhuna ay sidoo kale ninkeeda wixii xun inay u diiddo ay ka hor istaagto ay ka masayrto. masayrka noocaasoo kale waa masayr xun, waa masayr fiican. waana midka haddii lala imaan waayo ee dayuuth uu qofku noqonayo oo qofku oga raali noqdo waxyaabaha xumaanta. masayrna waa mid xun oo ama qofku inuu xumaanta qof kale oga raali noqdo ama ma ahane masayrka kale ee guurka ku imaada, ninku inuu xaaskiisa qof kale la guursada.
أولا مسألة وحان دونيا rag iyo dumarba inaan si wanaagsan aan u fahamno waana waxyaabaha ugu waaweyn buu ku jiraa ee reeraheena dumiya haddaad dib u fiirisaan culumadana weydiisaan ee akhyaarta reeraha arrimahooda gashana aad la fadhiisataan qayb weyn ayuu ka yahay wuxuu u qaybsamaa labo farsamo xumo fara badan oo ragga xaggooda marka hore ka timaada oo xikmad xumo ku dhisan qaabka ay doonayaan inay guurka u sameeyaan iyo dumarkii oo wixii oo dhan baasiin ku sii daray oo qadaha iyo qadarka ay eber ka yihiin ilaa intuu alla u naxariistay mooyeen tabaaraka wa tacaala marka hore waxaan doonayaa inaan dhaho in dumar badan la guursadayay shareecadeennu maxay ka qabtaa marka koobaad inanay dad muslimiina baanu nahay mu'miniin baanu nahay alle iyo rasuul baanu u hoggaansannahay tabaaraka wa tacaala ayagaanu u tukanaayo cafan allaan u tukannaa alla ayaan u soonnaa asagaan u rukuucnaa keligii oo aanu u sujuudnaa nebi moxamed waddadiisa ayaanu raacnaa oo asaga ayaanu jecel lahay calayhi asalaatu wassalaam sidaa daraaddeed mar haddaanu nooca aan nahay nebi moxamed calayhi salatu wasalaam muxuu noo jideeyey zawaajka badan islaamku muxuu ka qabaa muxuuse u sameeye oo dawaabida bal masayrkaba intaan la gaadhin ka muqadime iyo hordhac ujeeddadiisa waa masayr allah tabaaraka wa tacaala fii suurati الnisaa wuxuu ku leeyahy fankixuu maa taaba lakum min الnisaa mathnaa wathulaatha warubaac ninka awoodi kara ha guursada 2 3 4 fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida war haddaydan cadli samayn karin hal mid uun ag fadhiya oo hal mid uun waajibkeeda la imaada buu alla leeyahy tabaaraka wa tacaala aayaddan waxaad arkaysaa awalkeeda inuu alla leeyahay war guursada oo guurka badiya oo ninkii 2 guursanaya iyo midkii 3 ka dhiganaya iyo midka 4 ka dhiganaya haddii aadan awoodi karin buu rabbi ku xidhay tabaaraka wa tacaala oo markaasi nin walba ooma furre waa ninka cadli iyo awood samayn kar fain khiftum anlaa tacdiluu war haddii aad ka baqdaan haddee inaydan cadli iyo cadaalad aakhara lagu qabsanayaa adigoo dhinac u socda sida baasha berbereyda la yidhahda badda joogto oo kale ayaad maalinta qiyaama imaane haddaadan cadaalad samayn karin aakhiradaada u nax haddaadan cadaalad samayn karin adduunyadaada u nax haddaadan cadaalad samayn karin qabrigaaga u nax haddaadan cadaalad samayn karin ishortaagga rabbulciza adigoo qaawan u nax nacam arrintaasi waa arrin damiir ah oo qalbiga ku jirto adigu aad si wanaagsan inaad oga fikirta la doonayo wayse dhacday oo axaadiidtuna dee way badan tahay tasawaju lwaduud alwaluud fa inii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama nabigunana waa sameeyey oo ficilhaan buu u sameeyey oo nabigu dumar badan buu guursaday asaga in kasta oo 9 u banaanayd calayhi salaatu wasalaam laakiin ragga 4 baa loo baneeyey waa masale salafka agtooda macruufka ah kulli wax qarsoon ma aha masale cid inkari karta aynay jirin wey inta haddaanu garannay waxaan doonayaa marka inaan dhaho gabadhay si fiican ii dhegeyso qalbigaagana isoo aadi indhahaagana soo fiiri dhagahaagana si wanaagsan u dhegeyso si fiican u dhegeyso arrintii way dhacday ilaahay baan kugu dhaariyey su-aal baan ku weydiinayaa in qadarkan uu dhaco oo gabarh kale lagula guursaday si aad reerkaaga u dumiso ma waxaad ka tiri kartay lawxulmaxfuudka waxaa aad iyo aad ii cajabisay gabadh arrintaa aan kala hadlay gabdho badan baan kala hadlay oo aad u qanacday waana rajaynayaa risaaladan hadda aan soo bandhigayo gabadh kasta oo maqasha inay qanacdana ayada ayay dan u tahay iimaanna u tahay marka xiwaarku sidan soo socduu noo dhex maray doodda sidan soo socotay gabadhaan noo dhex martay isweydiinta aniga gabadhaanna dhex martay si fiican u dhegaysta waan masayrsanahay oo ninkiibaa ila guursaday bay tiri laa baas waxaan ku idhi ninkaaga magicii waxay tidhi hebel baa la yidhaahdaa hebel inaad guursanayso goormo ayaad ogaatay waxay tihi markay sheekana dhex martay oo isku soo dhowaanay oo haddee guur dhacay oo meher dhacay un baan ogaaday inaan guursanayo maalan ama aan guursaday waxaan ku idhi miskiin oo horay ooma aadan ogeynba miyaa aslan ninka hebel la yidhaahdo inuu horay kugu qoraa oo laxul maxfuudka horay maadan u arkin ma og tahay yacni intaan samaawaadka iyo dhulalkaba la abuurin intaas oo sano ka hor ilaahay inuu kuu qadaray oo kuu qoray oo looxul maxfuudka ku qoray ninka hebel la yidhaahdo
inuu adigana kuu qoray ayadana asaga uu alla kugu qoray tabaaraka jalla wacala inaad guursan doonto su-aashu waxay tahay markii adiga lagugu qorayey in keligaa lagugu qoray iyo inay gabarh kale kugu ag qorayd ma ii sugi kartaa si fiican u dhegeysa xiwaarka waxaan arrintaa kula hadlayaa gabadh walba oo arrintaa ay ku timid inay halkaa ka fiiriso iskuna qanciso si wanaagsanna erayadaa u dhuuxdo 3 erey bayna ka koobnaan doontaa ka koobaad waxaa weeye ma ii caddayn kartaa ninkan ku qaba ee laguu qoray intaas oo sano ka hor intaan samaawaadka iyo dhulka la abuurin inaad lawxul maxfuudka keligaa ku qorayd iyo inay gabarh kale kugula ag qorayd laakiin muddada iyo taariikhdu un ay kala hormartay ma ii caddayn kartaa maya ma caddayn kartid waayo ma dhihi kartid ghaybkaan ogahay gaalnimo weeye waa shirki weeye inaad dhahdo ghayb baan ogahay oo lawxul maxfuudka waxa ku qoran baan ogahay waa ghayb ghaybkana alle keligii baa garan xataa ambiyadii baan loo sheegin ilaa intuu alla doono inuu oga sheego mooyeen tabaaraka jalla wacala walow kuntu aclamu alghayba lastakthartu min alkhayri wamaa massaniya asuu in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yu'minuun nabigeena calayhi salatu wasalaam baa saas leh saa ku dheh baa la yidhi suuratulacraaf anigu ghaybka ma ogi idan ma dhihi kartid ghayb baan ogahayo anigaa warka idiin hayo oo waxaan hayaa qoraal iyo caddayn ii caddaynaysa inaan aniga keligay ku qoraa idan arrintaa ma jirto midda labaad haddayna taa jira aan ku weydiiyo ma waxaad leedahay waan ogahay inay ku qorayd oo waanba arkaa inuu guursaday ma waxaad i leedahay in lagu qoro baa cadaalad xumo ahayd oo ilaahay baa dulmi subxaanaka yaa rab oo ilaahay baa dulmi iyo cadaalad xumo u tiirinaysaa ina allaha xarama subxaanahu wa tacaala calaa nafsihi dulm ilaahay naftiisa dulmi waa ka xarimay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi aniga naftayda dulmi waan ka xarimay ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala naftiinana ha isdulmiina idinku ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayado aad u fara badan noogu sheegayaa calaamadan ama astaantan dulmiga inuu naftiisa ka nasahay dadku ayagaa isdulmiya laakiin ilaahay naftiisa ma dulmiyo dadnana ma dulmiyo tabaaraka jalla wacala walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya ma ku dhiiran kartaa si fiican ii dhegeyso waa aniga hore ku idhi adaan kula hadlayaaye waa aniga ku idhi si wanaagsan qalbigaaga iisoo qaabili wuxuu reerku kaaga dumayaan rabaa maanta inaan hortaada dhigo inaad reer baad duminaysaaye waa lila guursaday baad leedahay shaygaad reerka ku duminayso yaan doonayaa inaan hortaada dhigo qodobka hore ma xustaa qodobka hore waxaan ku weydiiyey ma soo aqriday lawxul maxfuudka inaad keligaa ku taallay oo ninkaa inuu ku guursan doono aad keligaa ahayd iyo in lagugu ag qoran yahay taasi waa adigii iyidhi maya lawxul maxfuudka ma soo aqrisanin mana soo taalacanin la iimana sheegin mana garanayo waan garanaya haddaan ku dhahno waa kufri iyo gaalnimo islaamka aan kaga baxayo taa meel baan isku soo dhignay anna waan kugu waafaqsanahay arrinku inuu noocaa yahay laakiin su-aasha labaadaan ku weydiiyey waxay ahayd haddaad ogolaatay inay kugu ag qoraydoo wayba dhacdo waaba lagula guursaday ma waxaad leedahay ilaahay baa dulmi sameeyey oo in lagu ag qoro ma ahayn ma saasaad leedahay taana xaashaa wa kalla waa arrin khatara oo ayadana dhib weyn uu kaa soo gaarayo kufri iyo gaalnimana keenaysa inaad dhahdo in lagu ag qoro ma ahayn acuudu billah qodobkaana waa qodobka labaad aslan waa isku afgarannay alle inuu subxaanahu wa tacaala wax kasta uu samaynayo inuu xigmad yahay oo hadda su-aashaa su-aal kaleo aad u fahmi kartaanba kuu sheegi adi ninkan in laguu qoray maxaad ku aqbashay oo gabadha loo qori waayey waa cajiib adiga in laguu qoray ogolaatay waa zawjkaygii baad leedahay oo waad jeceshahay horena waxba omaadan ogeyn in gabadhan kale loo qorayna dagaal baad ka xigtaa reerkana waa kaaga dumayaa su-aashaan ku weydiinayo oo si caqli aan kuu weydiinayo oo si maskaxa aan kuu weydiinayo oo si mas-uuliyada aan kuu weydiinayo oo inaad ka fikirta aan doonayo qalbigaagana aad gashto aan doonayo xamaasad iyo inaad xagga dhigtana aan doonayo si degan oo fikir leh inaad ku fiirisa aan doonaya waxay tahay maxaad naftaada ninkan oogu ogolaatay in laguu qoray ood oogu faraxsan tahay
oo aad gabadhaasi inaan loo qorin wax u eg aad oga doodaysa aad leedahay may yaa imaa inaad furto ayada yaa imaa aniga waa inaad i furtaa away allihii jideeyey tabaaraka wa tacaala ee adiga iyo ayadaba isku kiin garab qoray ee ninkaa hebel la yidhahda idiin qoray away shaqadaasi waxaan u malaynayaa inay su-aashaa jawaabteedana aad iyo aad kugu adkaanayso qodobka saddexaad waxaan doonayaa inaan dhaho in laguu qoray garanay in la qoro ay dhacdo inayn dulmi ahayna waanu garanay allah tabaaraka jala wacala afcaashiisa iyo waxa uu samaynayo ma cid la maamusha oo la xukunta doonto ka xadafta waxay doontana ku siyaadisa miyaa jirta alle xikmadiisu miyaynan ahayn xikma baaliga oo aad u xeel dheer oo shay walba meesha ku habboon dhiga yaa kuu sheegay yaana kuu sharxay yaana kuu fahamsiiyey arrintan ayadaa in lagula guursado inay khayr ku ahayn ma laga yaabaa adiga inay khayr kuu tahay ma laga yaabaa ilmihii ku anfici lahaa adiga inay gabadhaa kale ay dhasho ma laga yaabaa ma laga yaabaa inay cuquubo ilaahiye a kaaga timaado nicmada aad haysato in ayada la siiyo bal qisadan yara kooban dhegeyso nin baa xaas qabay 4 ilmood oo weliba 4 wiil ah soomaalidu wiilal bay jeceshay carabtube 4 wiil bay u dhashay gabadhii dambe lala guursaday bay ku jeestay waayo ninkii bay wax u dhali weyday waxay tiri u fiirso alxamdulilah aniga 4 ilmood buu alla isiiyey mid waad aragtaayoo calooshaan ku sidaa mid waad aragtaayoo hortayduu socdaa mid waad aragtaayoo gadaashayduu socdaa wahaakadaa way faantay ya gabadhii way fikirtay oo way walbahaartay laakiin ilaahay xikmadiisa u fiirso ilaahay qadahiisa iyo qadarkiisa u fiirso walilaahi alxikmatu albaaliga subxaanaka yaa rab allah wuxuu qadaray subxaana wa tacaala allihii bixiyey amaanadan inuu dib u ceshado 4 wiilba ilaahay baa dib u ceshaday gabadhina ilaahay uur buu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay 4 wiil bay dhashay yaa waxaan keenay oo yaa waxaan bixiyey kadibna maxaa dhacay islaantii oo xanuunsatay oo dhul dhacday ayaa waxay u soo baahatay gabadhii iyo carruurtay dhashay wareedhe adigu arrinkan ma ogid ilaahay baana xikmaddaa garanaya tabaaraka wa tacaala aan xaggaa iyo dib kuu celiyey saxaabatu rasuulillaah sala allahu alay wasalam u fiirso gabadha la yidhahdo umu salama markuu ka dhintay abu salama ayuu nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ducayso oo waxaad dhahdaa ilaahayow ninkaygii iga tegiyo iga dhimayo nin ka khayr badan iigu bedel waxay tihi oo ma ninkayga nin ka khayr badan baa jira aragtidaasay qabtay gabadha ilaahayna wuxuu u qadaray inuu nebi moxamed soo doonto subxaanahu jala wacala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tihi kuma guursanayo arrimo dhowr ah waxaa ka mid ahaa waan masayr badna nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ilaah baan kuu baryay inuu masayrka kaa qaado allahu akbar halkaa culammadu waxay dhaheen waxaa la garanayaa masayrku waa cudur marka ka waran qofkii cudurkii isku sii riday asagoo masayrku cudur ahaa ka waran qofka isku sii riday oo cudurro kale ku sii daray soo cudur ku sii noqon maayo reerkuna kaa duumi maayo meeqa gabdhood baa intay masayreen oo reerkii ka duma iyagoo nin wanaagsan gabdhaha waxaan ku dhahaa wareedha gabadhay adi maxaa kaa khaldan ninkan ma jeceshahay haa keligii markuu ahaa soo kuma dhaqanaynin oo maada dhaqanaynin haa maxaa hadda soo biiray gabadh muslimada oo sidii aan hore ku soo sharaxnay sidaad adigu u qoraydba ayaa timid soo ma ahaa arsaaqadeeda ma la timid haa soo doqonnimo adiga kuuma aha ninkaad intaa taqaanay ee tababaratay oo intaasoo carruura alle kaa siiyey goortuu ugu fiicnaa ee uu hayinka noqday goortuu ugu wanaagsanaa ee aad ka adkayd waxaa la yidhi marka u horraysa ninku uu guursado qof dumara ninku 4 gees buu leh gabadhuna 1 geesba ma leh odayaasha soomaalidu saasay dhahaan waana waaqic wey mar alla markuu cunug u dhasho gabadha gees baa u soo baxa ninkana gees baa ka jaba laba markay u dhasho 2 gees bay yeelataa ninkana mid kalaa ka jaba
saddex markay u dhashana saddex gees baa u soo baxa ninkana mid baa ka jaba afar markay u dhashana afar gees bay yeelataa ninkana waxba khalaas waa dhammaatay macnaheedu waxay ka wadaan haweeney afar kuu dhashay wayba kaa adag tahay sooma meel laba ooma socod sooma ninka aad marka tababaratay eed afartii geesba ka jartay oo adna aad afar gees ku yeelatay inay gabar kaa qaadato so adi xumaantaadaaba maad quruxda meesha ugu dambaysa iyo cunto meesha ugu dambaysa iyo hadal macaan meesha ugu dambaysa adoo qadarka allana raalli ku ah maad ninkaaga hoosta soo gashatid maxay kaaga qaadi gabar kale waa risaalo anu aan gabdhaha siiyo wey waxaan u arkaa arrintaa gabdhuhu inay dib aad iyo aad ugu noqdaan marka nabigu umu salama waa u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam ilaahina waa ka sii qaaday halkan waxaan rabaa inaan gabar kasta oo soomaaliya ku baraarujiyo ma doonaysaa ilaahay inuu kaa sii qaado masayrka reerka kaa duminaya ma doonaysaa hadda ilaahay bari alla nabigaba intuu alle u baryey umu salama yuu alla ka sii qaaday sooma sala allahu alay wasalam allah ka sii qaaday umu salama adiguna haddaad alla barido allah kaa sii qaaday waxaan gabdhaha leeyahay ilaahay ku xidhma oo ilaahay u carara oo ilaahay u sujuuda oo asaga barya oo asaga tala saarta waxaan waa baaba'ayaan waad dhimanaysaan aakhare waad ka tegaysaan ma diidani markaa saas lehay masayrka waa wax jiri kara waa wax jiri kara laakiin waa inuu noqdo masayr wanaagsan dib baad ugu noqon kartaan cajaladda aan u bixiyey masayrka wanaagsan youtube-kay ku jirta saacad iyo ka badan socoto masayrka wanaagsan way dhici kartaa inaad masayrto laakiin waa inuu dawaabid leeyahay waa inuu shuruud leeyahay waa inaada xadgudub samaynin bal hooyadan caaisha oo masayrtay aan tusaale u qaadano ayada iyo rasuulka isla socday maalin calayhi salaatu wassalaam waxay ku soo baxeen meel tog ah ama webi ah ama faraq ah sida loo yaqaano way kala weynaan karaane waxay tiri rasuulka ilaahayow calayhi salatu wasalaam adigoo geel awrtaadii wato oo socoto ah haddii aad ku soo baxdo toggan oo kale ama webigan oo kale oo dhinacanna uu barwaaqo yahay dhinacanna abaar yahay adiga iyo gaadiidkaad wadataba xaggee degi lahaydeen wuxuu ku yidhi caqlan dee dhinaca geedaha iyo barwaaqadaanu degi lahayn iyo hooska waxay tidhi haddaba islaan carbeedoo ilka dhacsatay oo waa hore dhimatay oo gabarh yar ilaahay kuugu bedelay maxaad horta u sheegtaa khadiijay u socotaa marka hooyadan caaisha halkaasay la yar gaadhay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu qanciyo wuxuu yidhi waxaa weeyaan khadiija gabadha la yidhaahdo u fiirso diinta igu garab istaagtay markay i beeniyeen bay i rumaysay intaasoo carruuray ii dhashay wuxuu nabigu bilaabay inuu ammaano khadiija allahu akbar inuu ammaano xataa intuu neef adhi aqalo ayuu dhihi jiray saaxiibada khadiijaha loo geeyo hataa caaisha iyo khadiijo isma soo gaadhin ogaada tu kala qaata hooyadan caaisha martibaa u timid haweenkii nabiga sala allahu calayh wasalam mid ka midaa maqashay in caaisha marti culus u joogto waxay damcda inay raashin ku kaalmayso wiil bay u soo dhiibtay addoon mar alla markii raashinkii weelkii iyo xeeradii iyo wixii ku jiray markii la keenay hooyadan caaisho way masayrtay masayr macnaheedu u yahay ma anaa martidayda ku fillaanla ilaa ay gabarh kaloo layla qaba ay cunto ii soo dhiibto qool iyo qoriba intay soo qaatay ee bash ku kala siisay nabiga martibaa u fadhida calayhi salatu wasalaam nabigu intuu gabadhii la hadlay caaishayd buu ku yidhi raashinkiina waa inaad raashin la eg samaysaa weelka aad jabisayna waa inaad u guddaa dadkii martidaana wuxuu ku yidhi hooyadiin way masayrtay masayrku inaha inuu dhaafo laakiin masayrka gaadhaya maanta waxaan aragnay ee guryaha la gubayo ee dadka la gubayo ee maxaa la yidhahdaa baasiinka loo karkarinayo ee saliidda loo karkarinayo ee baabuurta iyo mataqaanaa xoolihii la jajabinayo waxaas masayr ma aha waa dulmi iska ilaaliya gabdhow dulmi baad gelaysa adu laakiin waan masayrsanahay baad leedahay waxaan isleeyahay kelimaadka inay aad iyo aad muhiim u yihiin lamana soo koobi karo runtii waxyaabaha reeraha dumiya walacalla kelimadaas inay noqoto kelimada noogu dambaysa reeraheenna yaan la duminin biidn illahi tabaaraka wa tacaala
qadarka ilaahayna ku kalsoonaada biidnillahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna isu dhiiba subxaanahu jala wacala allah waxaan weydiisanaya subxaanahu wa tacaala inuu reerahayna noo wanaajiyo kelimada ugu dambaysa ragga waxaan leeyahay xikmad isticmaala oo ninka doonaya inuu gabadh kale gabadha la guursado xaaska la guurso war qaab xikmad la u guurso qaab xikmad la u guurso qaabka ay ragga qaarkood u guursadaan haddee qaab ka qayb qaadanaya ma aha damiirka qofkaagan ilaali qofkan waa qofkaad nolosha isla soo qaadateen sharafteeda ilaali qiimaheeda ilaali yacni ka dhaadhici oo la fadhiiso ka dhaadhici oo qanci oo si wanaagsan ugu sheeg biidnillahi tabaaraka wa tacaala gabadhu way ku jeceshahay way qaadanaysaa haweenka waxay u baahan yihiin hadal macaan iyo qaab macaan iyo ficil macaan iyo muusood macaan waa dhalo iyo quruurad intaasay u baahan yihiin wax kale ooma baahno marka xikmadda ha la hagaajiyo biidnillahi tabaaraka wa tacaala markaad guursanaysana ha noqoto ujeeddo iyo hadaf inaad u guursanayso yayna noqonin wax reerkaagana ku duma biidnillahi tabaaraka wa tacaala xikmad xumana kaaga dhacda yayna noqonin gabdhahana waxaan leeyahay arrinkaa hadduu dhaco qadaha iyo qadarka isu dhiiba kuna kalsoonaada allah tabaaraka wa tacaala aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan isu imaanay maxaa la yidhahdaa magaaladan toronto waddanka canada allah waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala inuu marar kale uu noo qadaro inaan isu imaano intaanu kaga kulmayno xalaqo kale oon tan ahayn waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا